kambaniga Higgs Investment oo kamid ah kambaniyada sarifka lacagaha qalaad ee ka howlgala Soomaaliya gaar ahaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa uu maanta lacag guddoonsiiyay macaamiishiisa iyo sidoo kale ku dhawaad 40 caruur ah oo agoon ah. goobta caruurta agoonta lagu guddoonsiinayo lacagta waxaa ku sugnaa maamulaha guud ee shirkadda Higgs Investment Soomaaliya Maxamed Xuseen Ibrahim iyo sidoo kale waalidiinta. ugu horreyn waxaa ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. anigoo Xamdi Axmed Macow cunug agoon aan haysto lacag $40 aan shirkadda Higgs liigisi waan u mahad celinayaa oo faraxsanahay. Faadimo Maxamed Aliira aniga ilmaha aabbahood ilmihii adoogoodaan dhalay alxamdulillah away aabbahood ilmaha aabbahood waa ama dhinta lama bahood kala waay ay maxaa qaadatay maanta $40 واحد هسه أمد محمد إلهي معلو بقى كل صاح حسوس بخير والقيام الله كسر عليه وهاي. وقد بين وحاسوق بقبي قدوميا Higgs Investment Soomaaliya Maxamed Xuseen Ibrahim. anigoo ah gudoomiyaha shirkadda Higgs Investment Company gudoomiyaha shirkadda guud Higgs Investment Company qaybta Beledweyne maanta waxaan ka bixinay dad 69 ruux ah ayaan lacag siinay oo iskugu jiro agoon iyo maalgashi. dadka maalgashaday waa 19 ruux qof waliba teetalka lacagta u dhigtay faa'iidadeeda ayuu helay. kunkiina waxaan bixinay $400. lacagta agoonta aan siinay waxa waaya ala ruux $40 aan siinay si isla mid ah wixii agoonta ka yar 15 totalka waxaa noogu jiro bil walba shirkadda waxay faa'iido ahaan ay u hesho ayaa kamid ah qayb agoonta aan ugu tala galnay inaan bil walba siino inta shirkadda ay shaqeynayso. shirkadda masaxaruud ay ku leedahay gobolka shirkadda xaramankeeda waa 5 qaybteeda weyn waa Muqdisho, qaybta ku xigta waa Beledweyne, qaybteeda saddexaad waa Kismaayo, qaybteeda afaraad Jowhar waa qaybteeda kala Baardheero. gobolada noo dhiman inaan gaarnaan jecelnahay ilaa wadamanka hormarin waa noogu jiraan. Higsigaan wuxuu yahay in waxyaalaha badan tabarucaadka isbitaalaadka inaan wax ka qabanno ayaan diyaar u nahay ilaa wadooyinka. Higsigaan wasaas dadka in wax u qabanna ay kamid yihiin dadkaas waxa waaye hadda rajada noogu dhow ayaga inaan wax u qabanaa rabnaa dadka masaakiinta ah oo iska liita inaan wax u qabanaa. ugu dambeyn dadka kale ee aan maalgashanin shirkadda maxaa ugu baaqay? waxaan ugu baaqayaa amaano iyo tay iyo amaano iyo hufnaan inay noogu yimaadaan xoolahii ay noo dhiibtaan gacan amaano ay u dhiibteen xafidataan. waa kambanigii ugu horreeyay ee markaasi lacago guddoonsiiyay caruurta agoomaha ee markaasi ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Cabdiwaaxid Maxamed Aadan wararka dalka News TV magaalada Beledweyne.